بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم. magacaygu waa Axmed. Waxaan sii wadanaynaa dersigaan hore usoo qaadanay. Wuxuu ku saabsanaa markay x-na ay u socoto infinity, y-na ay u socoto infinity. Tan laakiin waxay kaga duwan tahay ruuda meesha noo yaalla hadda, jadrigaana meesha yaalla. Sidii unbaa samaynaysaa u qaybinaysaa, laakiin jadrigan waa inaad ku xisaabtanto inuu bedelayo waxaad u qaybinaysay kulligood. laakiin nafsi sidii dariiqadii hore aan uga shaqaynayno kale unbaa uga shaqaynaysaa, oo ahayd inaad qaadato hooseeyaha x-ta ugu baawarka badan. Hadda hooseeyaha x-ta ugu baawarka badan waa x square, marka waa inaan x square u qaybiyo waxaan ruudka gudihiisa ku jiro, tiradan ruudka gudihiisa ku jirto, iyo inaan u qaybiyo sidoo kale kor. Okay, markaan u qaybinayo aniga intaan soo qaado x square toos uguma wada qaybinayo. Waxaan fiirinayaa markaan x square keligeed ruud geliyo maxaa soo baxaya. Meeshan waxaa ii soo baxaysa soomaha x, kan iyo kan waa isla tegayaan. Meesha waxaa ii soo haraysa x keliya. macnaheedu waxay ka dhigan tahay iyadoo la yiri x square, kan ruudkan wuxuu u qormaa, ruudka sidiisa wuxuu u qormaa markaa caadi u qoranaysid wuxuu u qormaa 1/2 sooma. marka jabraha waxaa lagu dhigtaa ama lagu qaataa markaa aragto tiro sidaanoo kale u qoran, markaa aragto maxaa samaynaysaa, kan exponentigan ama uskan iyo kan see isugu dhirinaysaa oo hal mida uga soo wada qaadanaysa. Waxaa la sameeyaa kan gudaha ku jira waxaa lagu dhuftaa kan iyo kan way isku dhacaan mar walba. Haddaad aragto mathalan x square oo haddana c square garaysan, waxay ka dhigan tahay x to the 4. saasay ka dhigan tahay. Kan iyo kan way isku dhacayaan, marka sidii oo kale isugu dhufo waxaad samaynaysaa. marka waxay noqonaysaa markaas x square ayaa waxaa lagu dhuftay 1/2. Okay, markaan 1/2 ku dhufto laba maxaa soo haray, labada waa isla baxay, maxaa soo haray hal. marka tan x muxuu noqotay exponentigeeda ama uskeeda 1. saasay marka noqonaysaa. marka waxaa la rabaa markaa u wada qaybinaysid adiga tan hadda meesha noo taalla, hooseeyaha ruudka kuwa ku jirana inaa u qaybiso nafsil wixii meesha kugu qornaa oo x square mathalan soo qaado. waxaan leeyahay ani marka ka shaqaynayo tan labaan u kala qaybinaya. waxaan leeyahay limit markay x u socoto infinity oo positive ah, maxaa tan ii soo baxaya oo x plus 8 loo qaybiyey root 2x square plus 3. maxaa soo baxaya markay x u socoto, x-ta markay u socoto positive infinity markay u socoto. waxaan niri marka waan sheegnay sidii oo kale samaynaysaa kan ruudka x-tan markay ruudka ka bixiso, x-tan square-ka markay ruudka ka bixiso hal x ay soo harayso. tan keligeedan sheegaya aniga x-tan oo aan rabo kor iyo hoos inaan u qaybiyo, ayadan ruudka ka saaraya. markaan ruudka ayada ka saaro waxaa soo haraysa x keliya. x-tiyan kor u qaybinayaa, hoostan laakiin waxaan u qaybinayaa oo ruudka tirada ruudka ku wada jirto dhan waxaan u qaybinayaa x square. taas mar walba waa inaad ogaato ama la socoto. tan marka waxay la mid tahay mid walba sidii hadda aan sameynaynay. waxaa samaynaysaa waxaa u qaybinaysaa tan gudaha ku jirta, ruudka gudihiisa ku jirtana waxaa u qaybinaysaa x square had walba oo gudaha ku jiro. tan korena waxaan u qaybinayaa x oo waxaan ka saarayaa x square-tiya waxaan ka saarayaa ruudkan, markaas x ay soo hartay sidaan hadaayo sheegnay. kuwan korena waxaan u qaybinayaa x. marka waxay noqonaysaa marka limit x waxay u socotaa infinity oo positive ah, wuxuu noqonayaa x loo qaybiyey x plus 8 loo qaybiyey x
kulligood u sii wada qaybsan tahay root 2x square loo qaybiyey x square. Soo ma jeeda ani tiro walba oo rootka ku jirto waxaan u qaybinayaa sida caadiga ahayd. Tiradii waan qaatay waan u wada qaybinayaa. Tan kale rootka ka baxsanna waxaan tirada kale rootka ka baxsan ama ay term walba ama xad walba oo ka baxsan rootkana waxaan u qaybinayaa kaan qaatay x ugu powerka badneyd oon qaatay oon rootka ka saaray. Waa 3 loo qaybiyey x square. Maxaa soo haraya marka hadda tan markaa isku jarjarto marka waxay noqonaysaa saan hore u sheegnay tan oo kale labadan way isu baxayaan tan iyo tan waxaa soo haraya 1 plus tan saan sheegnay waxaan niri tiro iyo hadday soo baxdo x oo hooseeya ah waxay la mid tahay 0 lianna limitkiya hoos infinitygiya wuxuu xt ku bedelaysaa marka waxay noqonaysaa haddii infinity tiro loo qaybiyo 0 meeshaas waxay soo haraysa 0 loo qaybiyo tan exponentigana sidoo kale samee tan ku jirta rootkana sidoo kale samee ayadana labadan waa isla baxayaan meeshaas waxaa iga soo haraya root 2 tan waxay la mid tahay 0 plus 0 meeshanna waxaa ka soo haraysa marka waa 1 over root 2 marka sidan laguma daayo saan sheegnay waxaa labada dhinac lagu dhuftay root 2 labada dhinac marka root 2 ku dhufato maxaa ku soo baxaya tan korena root 2 ku dhufo tan hoosena root 2 ku dhufo tan kore waxaa ii soo baxayo meeshaan ku qoranaya tan kore waxaa ii soo baxaya 1 haddaan ku dhufto root 2 waxaa soo baxaysaa root 2 loo qaybiyey haddaan root 2 lagu dhufto root 2 tirada gudaha ku jirtaa soo baxaysa waa 2 marka natiijada ugu dambeysay ee limitkaas soo baxaysa maxay tahay waa root 2 loo qaybiyey 2. Okay, bal aan fiirino marka limitka uu u socdo x ay u socoto negative infinity sidoo kale tidii soo qaado x plus 8 loo qaybiyey root 2x square plus 3 waxaan sameynayaa sidoo kale samee waxaad tiraahdaa limit x waxay u socotaa negative infinity marka wax kuwan aan isu qaybinayo marka seen ugu qaybinayo waan sheegnay waxaan niri kan gudaha ku jiro rootka ku jiro kan ugu hooseeyo denominatorka mar walba waxaad qaadanaysaa denominatorka midka ugu powerka badan x ugu powerka badan x ugu powerka badan waan sheegnay waxaan niri waa x square waxaan niri laakiin mar hadduu root meesha yaallo waa ina x square tan rootka ka bixisaan kuwan kore ugu qaybiyo markaan rootka ka bixino waxaan niri waa x marka inta x u qaybsamaysa inta x u qaybsamaysa laakiin hadda waxay kaga duwan tahay waxay tahay infinitygiya minus maadaama infinitygii minus uu yahay kan kuwan kore oo banaanka jooga markaad u qaybinayso waxay noqonaysaa minus x ama laakiin rootka gudahiisa kuwa ku jira markaad u qaybinayso waxay noqonaysaa x square oo minus ma dhahaysid why maxaa yeelay square meesha yaalla square mar hadduu yaallo kan wuxuu noqonayaa laba mar haddii laisku dhufto plus yani waxay ka dhigan tahay markaan iraahdo minus x square maxaa isoo baxaya x square ay soo baxaysa oo kan laba mar isku dhacaya laba mar haddii laisku dhufto plus isu bedelaya marka kuwan gudaha ku jiro dhan markaan u qaybinayo waa inaan iraahdo x square ama wixii ka baxsan oo banaanka ah maadaama x kaliya ay tahay waa inaan iraahdo maadaama aan hadda ku xalinayo negative infinity waa inaan iraahdo minus x waa inaan dhaho okay waxaan leeyahay x loo qaybiyey minus x plus 8 loo qaybiyey minus x over 2x square over x square ma dhahay minus y because this one waa x square marka laba mar isku dhufsamayo laba mar minuska markuu isku dhufsamayo plus uu noqonayo plus 3 loo qaybiyey x square maxaa ii soo baxaya marka sidii hadda aan sheegaynay oo kaleeto u samee waxaad samaynaysaa tan waxay noqonaysaa
labadan marka way isku baxayaan x x tan waxay soo baxaysa -1 meeshan -1 ay soo haray tan oo dhan maxaa ka soo baxaya 0 saan sheegnay waxaan nidhi tiro iyo haddii la isu qaybiyo infinity waxaa soo baxaysa 0 qawaaniinta horaan kusoo aragnay kuwan gudaha kusoo haray rootka ku jiro tan iyo tan waa isla baxayaan meeshan waxaad tirahdaa 0 kusoo baxday waxba hadda aad rabto waxaad dhihi kartaa -0 haddaad qoranayso caadi aad u qoranayso haddii kale laakiin mush muhiim inaad qorto waxaad tirahdaa -1 loo qaybiyey tan waxaa ii soo baxaysaa nidhi 2 tanna waxaa kasoo baxaysa 0 marka waxaan leeyahay -1 oo tan √2 waaye oo root ku jirto maxaa soo baxaya marka -1 over √2 waxaan nidhi kor iyo hoos waxaa ku dhufataa √2 waxaa soo baxaysa √2 -1 haddii √2 lagu dhufto waa -√2 loo qaybiyey labadana √2 haddii lagu dhufto √2 waxaa soo baxaya 2 marka waxaa ii soo baxaya limitkaas oo dhan waxaa kasoo baxaya -√2 over 2 okay mithaalkan kalena aan fiirino waa nafsi kii haddoo kale uu egyahay wax yar oon macno lahayn bay ku kala duwan yihiin marka waxaan leeyahay sidii oo kale limit waan sheegnay markay sidan oo kale yihiin limitka laba waa inaad u kala qaado mar uu positive yahay iyo mar uu negative yahay waa inaad u kala qaado limit markay x u socoto positive infinity 4x cube loo qaybiyey 2x cube plus rootkan tirada ku jirto oo ah 9x to the 6 plus 15x to the 4 tanaa laga rabaa marka inaan soo saaro sidii hadda tii hore aan sheegnay oo kale waxaad samaynaysaa mar walba limitkan oo kale markaad ka shaqaynayso oo x ay infinityga u socoto waxaad fiirisaa denominatorka xta ugu powerka badan hadda meeshan saa aragno denominatorka markaan fiirino x cube iyo x to the 6 iyo x to the 4 meeshan noo yaala kee ugu badan marka intaan kana ugu badan soo maa kan maadaama uu ugu badan yahay kaasaad qaadanaysaa kaasaad mar walba waxaa u qaybinaysaa intaan iyo intaan laakiin waxaa nidhi bishard waa inaad ka taxadarto haddii meesha root u yaallo waa inaad tan rootka ka saarto saan oga saaraya marka waxaan leeyahay waa x to the 6 oo haddana root ku jirto maxay la mid tahay maxaa ii soo baxay waxaa kuu soo baxaya x cube sidee x cube iigu soo baxaysaa tan waxay ka dhigan tahay si hadda ayaan u sharxinoo kale haddaan iraahdo x to the 6 tan rootkana waxay noqotaa niri 1/2 soo ma marka maxaa niri tan iyo tan way isku dhacayaan marka maxay noqonayaan haddaan iraahdo 1/2 lagu dhuftay 6 maxaa soo baxay laba u qayb waa 1 laba u qayb waa 3 meeshan waxaa iga soo baxaya 3 marka xt meeshan labadan markaan isku dhuftay waxaa ii soo haray 3 marka maxay noqotay marka x to the 6 oo haddana uu powerkeeda yahay 1/2 waxaa ka soo baxaysa x 3 marka aniga maxaan sameynaya wixii rootka ka baxsan rootkan tirooyinka ka baxsan oo dhan maxaan u qaybinayaa x cube intana x cube ama rootka gudihiisa waxaan u qaybinayaa x to the 6 x to the 6 intaas waa inaan si fiican aan u fahno maskaxda uga hayno mar walba imtixaanka ka shaqaynaysana inta badan waa la isku khaldaa waa inaad ka taxadarto waxa aad markaas ku bedelaysa xtaada hadaa hadda x to the 6 aad meel walba oo intii u qabisa limitka kusoo baxaya wuxuu noqonayaa khalad marka waa inaad ka taxadarto marka maxaan leeyahay marka limit x ay u socotaa infinity waxaan leeyahay 4x cube loo qaybiyey x cube kulligoodna ay usii qaybsan tahay 2x cube loo qaybiyey x cube lagu daray 9x to the 6 loo qaybiyey x to the 6 maxaa yeelay tan maxay tan kaga duwanaatay waan sheegnay waxaan niri tan rootkia laga bixiyay markaasa kuwan kale loo qaybiyey plus 15x to the 4 loo qaybiyey x to the 6 maxaa ii soo baxaya marka tan
labadan way isla baxayaan sooma. meeshaas maxaa ii soo haray? afar. waxaa ii soo haraya 4 loo qaybiyey. labadanna way isla baxayaan, meesha maxaa soo haraya 2 lagu daray. tan way isla baxayaan, ruutka gudihiisa maxaa kusoo haraya inta 9. tan waxaa niri 6x iyo 4x. haddii 4x inta 4x laga jaro meesha waxaa soo haraya 2x. 2x over 15 ay noqonaysaa 15 over x square ay noqonaysaa sooma. 15 waxaa soo baxaysaan 15 over x square. tan macnaheedu maxay ka dhigan tahay marka 0 inay tahay sooma. meesha maxay noqonaysaa 0. meeshan wax ruutka ku jiraayo marka muxuu noqonayaa 9 keliya. marka maxaa ii soo baxaya marka ugu dambeyntii waxaa soo baxaysa 4 ruutka markaa 9 fruitka ka saarta maxaa soo baxaya 3 aa soo haraysa sooma. 3 waxaan leeyahay marka 2 plus 3 meesha maxaa soo haray marka 4 over 5. waxaan leeyahay marka limitka tan waxaa la yidhi mogtahay waxaad sheegtaa suluugeeda marka uu limitka x suluuga aniga raadinaya yani behaviorki aan raadinaya. waxaa la yidhi limitka marka x u socoto infinity oo plus markay u socoto waxaa soo baxaysa 4 over 5 aa ii soo baxaysa. waxaana martaa dariiqadan sidaan waa inaad oga shaqshaqayso. marka waxaa kusoo baxaya limitkii ugu dambeynta waxaa kusoo baxaya 4 over 5. okay, markaan fiiriyey markuu limitka u socdo x waxay u socotaa negative infinity. negative infinity markay u socoto waxaa qiimaha laysiiyeyna waxaa waaye waa 4x cube oo loo qaybiyey 2x cube lagu daray root 9x to the 6 plus 15x to the 4. haye marka sidii oo kale hadda maxaan sameynayaa kan denominatorka ugu weyn waxaan u qaybinayaa kor iyo hoos. denominatorka kan ugu weyn waa x to the 6. x to the 6 markaan u qaybiyo markaan waxaan niri waan sheegnay rootka ka saaraysa. rootka markaa ka saarto maxaa kuusoo baxaya marka x cube. marka maxaan sameynayaa kuwaan dhan waxaan u qaybinayaa sida haddoo kale x cube ayaan u qaybinayaa kuwaan tan gudaha ku jirtana laakiin waxaan u qaybinayaa x to the 6. laakiin hadda waxaan niri tan waxay kaga duwan tahay tan waa plus infinitygu waa plus kana infinitygu waa minus. maadaama infinitygu uu minus yahay maxaan sameynayaa aniga marka way isbedelaysaa sidii hore ma ahaanayso. waxay noqonaysaa marka markii aan x minus x la yiraahdo 6 maxaa meeshan soo baxaya x to the 6 markii la yiraahdo minus x to the 6 waxaa ii soo baxaysa x to the 6 laanna minuskan 6 mar haddii laysku dhufto wuxuu noqonayaa plus wuu isu bedelaya. horaan u sheegna waxaan niri mar haddaa aragto even ayadoo ah ama dhaban ah waxaa soo baxo calaamadii way isbedel. hadday minus ahayd way isbedelaysaa plus ay noqonaysaa. hadday plus ahaydna pluskeeday ahaanaysa. laakiin hadduu meeshan odd yahay ama kisi yahay calaamadan hadday minus ahayd maxay ahaanaysaa minus. hadday plus ahaydna maxay ahaanaysaa plus. marka saas waa inaa u kala ogaad. marka maadaama aan u qaybinayo ruutka tirooyinka ku jiro gudihiisa ruutka gudihiisa teramyada ku jira maadaama aan u qaybinayo x to the 6 calaamadan minuska markaan isticmaalo plus ay isu bedelaysaa. marka uma baahni marka inaan plus ku qoro waxay noqonaysaa mid walba meeshaan u qaybinayo inaan iraahdo x to the 6 without minus inaan iraahdo. ama kuwan kale laakiin waxay kaga duwan yihiin. tan waxay noqonaysaa minus x to the 3 cube soo ma. minus x cube waxaa soo baxayso minus x cube. waan sheegnay markuu kisi yahay calaamadii sideedii ahaanaysaa waxba iskama bedelayso. marka maxaa noqonaysaa marka kuwaana inaan u qaybiyo ayagana minus calaamad x minus x cube inaan inta u qaybiyo labadan kale. okay, marka minus ku bedel marka hadda wixii oo dhan hadda sidii wixii minus watana minuska sii wixii kalena aan minus wadanina minuska ka reeb. waxaan leeyahay marka limit
x waxay u socotaa negative infinity 4x cube loo qaybiyey minus x cube kulligoodna waxay usii qaybsan yihiin 2x cube loo qaybiyey minus x cube minuskanna waan sheegnay sababta u yimid because tiradana waxay tahay tiradan waxay tahay exponentiga ama uskana wuxuu yahay odd ah saas awgeeda minuskii u yaala meesha haddii meeshan ay square ahaan lahayd ama to the 4 5 6 8 saasoo kale ahaan lahayd minuskan meeshuu ka tegi lahaa rootka qoro 9 x to the 6 loo qaybiyey x to the 6 ma dhahayo minus because kan powerka wuxuu yahay evena ama dhabana plus 15 x to the 4 loo qaybiyey x to the 6 tan maxaa soo baxaya meeshan labadan way isla baxayaan meesha maxaa iisoo haraya minus 4 soo ma minus 4 loo qaybiyey labadan way isla baxayaan maxaa soo haraya marka minusa soo haraya soo ma minusa soo haraya minus 2 ay iisoo haraysa meeshan minus 2 kuwana meeshan maxaa soo baxaya 9 tan waan sheegnay waxaan idhi labadan x square tan x to the 4 tan iyo x to the 6 tan waxaan idhi tan afartan hadday la baxdo afar meeshan waxaa iisoo haraysa x square x 15 over x square waxaan nidhi waxaa soo baxay 0 marka meeshan waxaa iga soo baxay 0 keliya 9 90 marka rootka ka saaro 9tan markii rootka laga saaro sidii hadda aan sameynayno oo kale rootka markii laga saaro waa 3 waxaa soo haraya plus sorry plus 3 plus 3 akhiiran maxaa soo baxaya marka labadan kala jar labadaba kala jar maayan soo ma minus 2 iyo plus 3 maxay soo haraya 1 1 loo qaybiyo wuxuu noqonayaa minus 4 loo qaybiyo 1 meesha maxaa soo hara 1 hoos hadduu galo hoos tago lama qoro marka waxaan leeyahay waxaa soo baxay minus 4 natiijadii way ka duwanaatay hadda tii hore soo ma aragtid tii hore waxaa soo baxday 4 over 5 laakiin tan minus 4 aa soo baxday because minuskiya wuxuu bedelay haddii meeshan balas aan labadan isku darsami lahaa markaasa waxa soo bixi lahaa meeshan 5 laakiin minuskii wuxuu bedelay natiijadii tan waxaa soo baxday tan kore waxaa soo baxday markuu plus yahay limitka x markay u socoto positive infinity waxaa soo baxaysa 4 over 5 laakiin markuu yahay negative infinity waxaa soo baxaysa minus 4 a kusoo baxaysa kuwan mithaaladan exaambladan bal soo fiiri kuwan tan horaan ay u qoran tahay marka waxaan ku tusinayaa sida ay usoo baxayso xisaab badan ama wax badan ood calculation ama aad ka shaqaynaysa ma jiro hadda markii lagu yiraahdo ffx waxay la mid tahay e to the x markii lagu yiraahdo graafkeeda calculatorka markaa ku sawirto sidaanu noqonayaa saasuu u baxaya markaasa waxaa lagu yirahdo waxaad sheegtaa bal suluuga ay yeelanayso waxa ay noqonaysa limit ahaan marka la fiiriyo tan markaad fiiriso hadda tan dhankan markaad ka fiiriso x markay tahay balaska ilaan laba qayb baan u qaybinaya x markay tahay balas iyo x markay tahay minus sooma aniga limitka maro infinity mar walba la isiinayo waa saas mar uu yahay balas dhankana iyo mar uu yahay minus dhankaas markii la yiraahdo balaska intaan nuqdadan markii laga bilaabo ilaa intaan muxuu noqonayaa limitka saasuu noqonayaa sooma ffx waa kasa koray aaday marka maxaan leeyahay aniga limit e to the x waxay la mid tahay infinity markii dhankan laga fiiriyo saasay u soconaa way socotaa laakiin markii la yiraahdo dhanka minuska markii la dhaho y amaba ffx maxay u socotaa 0 sooma 0 say u socoto 0 way ku degaysaa marka 0 way noqonaysaa laana meeshan waxaa weetaa khadkan oo dhan y waxay ka tahay 0 khadkan oo dhan x waxay ka tahay 0 marka meeshan waxay noqonaysaa 0 marka maxaan leeyahay aniga marka hadda limitka x to the e to the x waxay la mid tahay 0 markii limitku uu yahay dhanka negative infinity markuu yahay waxaa kuu soo hartay tan
minus markay tahay waa cagsi ayadana. Calculatorka haddaad geliso nafsi sidaas sawirkaana kusoo baxaya. ayadana nafsi sidii oo kale cagsigeedii waaye oo tan cagsigeedu noqonaya. tan sideeda waa 1 waxaa u qori kartaa 1 waxaad u qoran kartaa sidan mar haddaa aragto e negative x to the negative x waxaad dhihi kartaa waa 1 over ex. mar walba marka maxay noqonaysaa cagsi ay noqotaa oo wixii la daba gediyey. marka mar haddii la daba gediyey sidaanay noqonaysaa. saa markay noqoto markii laga fiiriyo labada dhinac marna balaaska laga fiirinaya marna minuska soo ma dhanka x plus markay tahay oo infinity plus ay u socoto y maxay noqonaysaa y waata waxay noqotay 0. marka waxaan leeyahay limit e to the x to the minus x waxay la mid tahay 0 waa marka x ay u socoto dhanka plus infinity. ama laakiin markay u socoto dhanka minuska markay u socoto maxay noqonaysaa infinity saad u jeeda. marka waxaan leeyahay limit e to the minus x markay x u socoto minus infinity ay u socoto waxay la mid tahay infinity ay la mid tahay. waxaa ku soo hartay natural log. natural log tan maxay noqonaysaa iyada graafka markaa iyada ku sawirtana saasay noqotaa soo ma okay iyada marka maxay noqonaysaa iyada markaad fiiriso fiiri y markaad fiiriso hadda dhankan iyo dhankaanan ka fiirinaynaa sooma dhankan markaan fiiriyo aniga markii dhankan laga fiiriyo horta maba jirtaba sooma khadka dhankan maba gudbinba dhankan waxay ku egtahay iyada noqdada ziiraday ka bilaabataa zeroda x-ka ilaa marka adiga markaa fiirinaysid limitkan hadda markaa fiirinaysid ma dhahaysid negative infinity iyo positive infinity laana khadkii maba gudbinba maba dhihi kartid. marka waxaa leedahay laakiin mar waxaad fiirinaysaa zeroga waxay tahay marna waxaad fiirinaysaa infinityga wuxuu yahay. markaan zeroga fiirinayo markaan fiirinayo infinityga ugu horeeya markaan fiirinayo muxuu noqonayaa infinityga markaad fiiriso positive infinity markaad fiiriso x ay u socoto y-dii waa kaas ayadana waxay u socotaa infinity. marka waxaad leedahay limit natural x x-na ay u socoto positive infinity waxay la mid tahay infinity. ama laakiin noqdada markaad fiiriso sifirka intay u socotaa hoosay u socotaa soomaha y-dii waxay u socotaa negative infinity ay u socotaa. marka adiga waxaad leedahay limit x markay u socoto x markay u socoto 0 weliba waxaa laga fiirinayaa dhanka zeroga waxaa laga fiirinayaa weliba dhanka midigta dhanka bidixda lagama fiirinayo laano xariijintan fiiro si daqiiqa wax walba la rabaa in loo xadido. haddaad hadda aad 0 kaliya ku dayso qofku wuxuu isweydiin karaa zeeradaasi uu qofkan ku daayay ma dhanka midiga ma dhanka bidixa. marka waa inaad u cadayso oo tiraahdo zeeradan aan ka hadlayno waa zeerada marka laga fiiriyo dhanka midigta laga fiiriyo soo ma jeedid balaasa korka laga saaray waxaa laga wadaa markii laga fiiriyo dhanka midig y maxay u soconaysaa negative infinity dhankan dhan y waxay ka tahay minus sooma marka negative infinity ay u socotaa. marka adiga waxaad leedahay limit x markay u socoto 0 laakiin dhanka midiga natural x waxay la mid tahay negative infinity. tanaa kuu soo hartay tan waxa waaye waa sin sooma sinta waa tan mithaalkan aan nala siiyey mithaalkan lagu siiyey sin x waxaa lagu yidhi ayada bal cadee ayadana wuxuu yahay suluugeeda ama say u dambeynayso ama waxay noqonayso. ayada graafkeeda waa sidan waa caan waa saas laakiin waxay ka bilaabataa sifirta khalle iska ilaali mar walba waxaa ogaataa cost waxay ka bilaabataa ayada 1kay ka bilaabataa saasay u socotaa ama sinta waxay ka bilaabataa 0da saasay u noqotaa. marka ayada saada meeshaan u jeedno waxaa noogu qoran waxaa la yidhi ayada limitkeeda waa does not exist ma jiro oo lama helayo. why waxaan loo helaynin markaad fiiriso hadda fiiri kan dhanka mathalan noqdadana aniga qaatay mathalan tan noqdadan mathalan iska dha waxaad tirahdaa by iska dha taas by markaan dhaho meeshaan mathalan haddaan meeshaan by dhaho noqdadaas by waxaan rabaa aniga by balaskeeda inaan fiiriyo iyo by negatifekeeda inaan fiiriyo labada dhinac. bydan meeshaan noqdadaana markaan fiiriyo dhankeeda midig y waatana qiimayaasheeda soo maa saasay noqotay y laakiin markaan fiiriyo dhanka bidix markaan fiiriyo y waatana qiimayaasheedii
marka midna waa positive midna waa negative soo ma isku mid ma ah maadaama ay labadoodan ayna isku mid ahayn hore waxaan u sheegnay waxaa la yiraahdaa nuqdada marka la fiiriyo bayda naftirkeeda marka la fiiriyo waa does not exist ma jirto marka weligaa haddaad aragto sin ama cosine aad aragto oo kor iyo hoos iyo minus iyo balaas saasoo kale u samaysan waa does not exist limitkeeda maba isku sii daalinaysid negative infinityga marka la fiiriyo iyo aan dhahayn negative infinityga marka infinityga marka ay x u socoto iyo markay u socoto plus infinityba labadaba waa ma jirto sin ama cosine labadaba limitkooda ma jira marka intaan yartaa lagu soo wada koobay kulligood waxaa la limitka markuu u socdo haddaad sidan ku xifdiso maskaxda aad ku qabato wax weyn bay kuu taraysaa yani mar haddaa aragto limit x-na ay u socoto infinity oo positive ah e to the x oo e-na x ay korka ka saaran tahay mar walba waxay u socotaa infinity haddaad aragta iyadoo cagsiyana oo minus x ay korka ka saaran tahay e-da laakiin ay weli u socoto positive infinity ay u socoto maxay noqotaa zero sidaan hadday soo haran hadday laakiin minus infinity x u socoto e-dana ay x oo plus ay korka ka saaran tahay waa zero laakiin hadday u socoto minus infinity ay u socoto plus infinity ay u socoto x-tana ay maqluub tahay waxay noqonaysaa positive infinity yani cagsay isku yihiin labadan hadduu aragtay labadan waa isku mid labadanna waa isku mid soo ma jeed natural x sideeda iyada mar walba waxay u socotaa marna waxay u socotaa positive infinity haddii x waxay tahay qaadataa x hadday positive infinity u socotaa iyadana waxay noqonaysaa positive infinity laakiin middan aan sheegnay waxaa kaga duwan tahay basa ayada ma u gudbayso dhanka minuska xta uma gudbayso oo waxay ku eg tahay keliya zerada weliba zerada dhanka midig keliya markaana waxay noqonaysaa negative infinity intaan waxaad isku daydaa inaad maskaxda ku hayso darsigan intaasaan kusoo koobeynaa aad baad u mahadsantihiin wixii tala iyo tusaalahan aan isu soo hagaajina iyo wixii khaladaada ood ku aragto waa xisaab waxaan waa qof walbuu khaldi karaa marka wixii khaladana iisoo sheeg aad baad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu